bismillahi rahmaani rahiim. Casharkan waxaan ku baran doonaa sida la isugu bedelo degrees iyo radians oo ah laba hab oo lagu cabiro xagalada ama angalada. Intayna u gelin sida la isugu bedelo degrees iyo radians tusaalayaashooda, waxaan ku horumarin doonaa radians waxa loola jeedo iyo xiriirka ka dhexeeya radians iyo degrees. Si aan u fahanno waxa loola jeedo radians, aan sawirno goobo ka soo qaad xudunteeda inay og tahay, radiuskana aan soo qaadano r. Radiuska barta aan ka qaadno dhigna halka qaybtaaga aan joojinay, kadibna waxa ku riixdaa circumference-ga ama wareegga goobada. Qaybtan guduudan waxay la eg tahay qaansada ah r bay la eg tahay dhererkeeda, kaliya waa la qalloociyo. Haddana annagoo ka bilaabayna xudunta o aan sawirna radius kale annagoo ku xirana qaybta guduudan ama qaansada qaybteeda dhamaadka waa radius kale weeye. Waxaan haysanaa qaanso la eg radiuska iyo laba radii. Xagasha halka ku samaysmo waxaa loo yaqaanaa 1 radian, sababtuna waxay tahay maxaa yeelay dhinac walba waxa ka xiga radius ba ka xiga, waana radians sababta loo yiri. Wuxuu yahay marka xiriirka ka dhexeeya radians iyo degrees. Waxaan naqaanaa in wareegga goobada lagu helo 2/r, bayna ay ku dhowdahay 3.14. 2 marka macnaheedu waxay ku dhowdahay 6.28. r-na waxay noo ahanaga qaansada guduudan ba noo ah. Marka imise qaanso oo nooca kan guduudan aan u baahannahay si loo wada daboolo goobada oo idil dhamaanteed. Waxaan u baahannahay 6 qaanso iyo xogaa. Tan guduudan waa 1 2 3 4 5 6. inta yar madow ee hadhayna waa 0.28 ka weeye. Haddii radiuska ama gacanta aan ku sameeyno full rotation ama aan wada wareejino, macnaheedu waxa weeye xagashaas waxa ay wada martay wareegga goobada oo idil, taasoo ka dhigan in rotation ama wareeg dhammaystiran goorta samayso uu leeg yahay wareegga goobada oo ah 2/r. taa macnaheedu waxa weeye 1 full rotation iyo waxa isla eg 2/r. maadaama aan soo aragnay in 1 full rotation ay la eg tahay 2/r, sidoo kale waxaan hore u taqaanay 1 full rotation ay la ekayd 360 degrees. 1 full rotation waxa la eg tahay 2/r, 1 full rotation waxa la eg tahay 360. taa macnaheedu waa maxay marka? in 2/r iyo 360 waa maxay isla eg yihiin. halka waxaan ka qaadanaa marka 2/r inay la eg tahay 360 degrees. waayo 2 radians maadaama 360 degrees ay la eg tahay, aan simplification ku sameeyno 2 u wada qayb labada dhanba, waxay noqonaysaa marka 1 radian inay la eg tahay 180 degrees. waana xeerka aan ku shaqeyn doono. waayo tusaalayaashan u galeynaa, waxaan soo sheegnay 180 degree inay la eg tahay 1 radian. marka si aad ugu bedesho radians, haddii lagu siiyay degrees oo aad u bedelayso radians, waxaa sameynaysaa ku dhufo wixii lagu siiyay pi over 180. haddii laakiin radians lagu siiyo aad rabto inaad u bedesho degrees, waxaa ku dhufanaysaa 180 over pi oo kala rogaysaa. waayo tusaalaha koowaad marka hore waxaan ku hormaraynaa degrees loo bedelay radians. waa 9 degree ba waxaa la yiri waxa u bedeshaa radians u bedel. degrees baana la siiyay, radians baan u bedelaynaa, saaweed waxaan ku dhufanaynaa pi over 180. okay, marka wixii inta ka dambeeya waa simplification way. horta degree iyo degree isla baxayaan, 0 iyo 0 na waa maxay isla baxayaan 90 iyo 180 0 ay wataan. okay, 9 u qaybi waa 1 weeye, 18 kana waa maxay 9 u qaybi waa 2 weeye. marka halka waxa ku soo haray kor 1 baa ku soo haray, 1 iyo pi baa isku dhacay, hoosna 2. 1 pi ku dhufo waa pi over 2. okay, tusaalaha labaad 270 waxa la yiri waxa u bedeshaa radian u bedel, sidoo kale isna pi over 180 baan ku dhufanaynaa. okay, degree isla baxay, 0 iyo 0 na isla baxayaan. 27 iyo 18 isu qaybi, 9 baa u wada qaybsama, 27 9 u qaybi waa 3, 18 9 u qaybi waa maxay waa 2 weeye. 3 ga kor saaran iyo pi ga isku dhufanaysaa, 3 pi over 2 oo ku soo baxaysa. saate haddaan rabno inaan degree u bedelno, sidoo kale ku dhufo pi over 80, 0 iyo 0 isla baxay, 3 u qaybi waa 1, 3 u qaybi waa 6 weeye. okay, maxay noqonaysaa marka pi over 6. tusaalaha ku xiga sidoo kale ku dhufo pi over 80, waxaan isu saarinaa labada 0 isla baxayaan, 6 u qaybi marka 6 baa u qaybsama, 24 6 u qaybi waa 4, 18 6 u qaybi waa 3 weeye. 4 iyo pi isku dhufo 4 pi over 3. tusaalaha ugu dambeeyay ee degreeska, sidoo kale ku dhufo pi over 180, 0 iyo 0 isla baxaya, waxa uu wada qaybsami kara 3. waayo 3 u qaybi waa 11 weeye, 18 3 u qaybi waa 6 weeye. 11 iyo pi ga isku dhufo 11 pi over 6. qaybta kale waxaan u gudbaynaa radians baana la siiyay, waxaan u bedelaynaa degrees. waxaan sameynaynaa markan 1 over 80 divided by pi baan ku dhufanaynaa. pi iyo pi isla baxay, waayo 180 waxa u qaybisaa 4 waa 45 weeye. okay, tusaale labaad pi over 10, waayo pi iyo pi isla baxay, 180 iyo 10 waa maxay 0 iyo 0 isla saar, 18 ba ku soo haray. okay, 18 degrees. tusaalaha ku xiga pi iyo pi isu saar, 180 iyo waxaan isu qaybinaynaa 3. 180 haddaad 3 u qaybiso waa 60 weeye, 62 ga ku dhufo 120. tusaalaha ugu dambeeya 3 pi over 5, sidoo kale waxaa ku dhufataa 180 over pi. horta pi iyo pi isla saar,
180 iyo 5 isu qaybi 180 hadaa 5 u qaybiso waa 36 weeye 36 waxaan ku dhufanaa 3 ku dhufo waa 18 weeye 1 baan wadanaa 3 ku dhufo waa 9 ilaa halkii 10 waxaa noo soo baxay marka 108 degrees hada bila tawfiiq